marka ay halis timaado marka ay nolosha shacabka gasho xaalad degdeg ah waxaa jira ciidan aan dib u dhicin aan cabsi aqoon kana go'an badbaadinta nafta iyo karaamada dadka waa ciidanka Galleer oo ah cutub ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kuwaas oo ah astaanta geesinimada feejignaanta iyo jawaabta degdegga ah yastaliya amaamirtaan sis diyaar ayaa u nahay waxaa diyaar u nahay dalka dadka diinta waa inaan u shaqaynaa taliya shaqada waajibaadka inaan gudana diyaar u nahay taliya gabdhahan waxaa loo tababaray si casri ah tababar ay dawladda federaalka Soomaaliya ay fulinayso iyadoo ay ka caawinayso dawladda Mareykanka kana turjumaya mas'uuliyad qaran iyo ilaalinta amniga shacabka waxay barteen xirfado dhameystiran oo la xiriira badbaadinta shacabka ka hortagga afduubka la tacaalida weerarada argagixisada iyo maareynta xaaladda degdegga ah dawladda Mareykanka ayaa ka caawinaysa tababarkan iyo qalabeyntan ciidanka Galleer iyadoo oo siinaysa qalab casri ah farsamooyin horumarsan iyo aqoon la jaan qaadaysa heerarka caalamiga ah ee ciidanka jawaabta degdegga ah taas ayaa u suurtagelisay in gabdhahan ay ilbiriqsiyo gudahood u diyaar garoobaan xogta falaqeeyaan una dhaqaaqaan goobaha halista ah si nidaamsan xeelad iyo isku duubni leh geesinimadu waa mid aamusan balse ficiladoodu waa kuwa muuqda waxay ka hortagaan afduub waxay joojiyaan khatarta ka hor inta aysan waxyeelo dhalin waxa ayna difaacaan shacabka iyaga oo aan kala soocin cid iyo midna gabdhahan ma aha oo kaliya ciidamo waa halyeeyo casri ah matalaya doorka haweenka ee sugidda amniga badbaadinta nolosha iyo dhismaha mustaqbal nabdoon Galleer waa gaashaan waa difaac waana jawaabta marka ay halistu timaado